dumarku ninkay ka helaan waxa weeye si sahla kuma hilmaamaan si sahla kuma ilaawaan wayna jecel yihiin inay la dhaqmaan waayahay diinta maxaa ula jeednaa diinta qodobka diintaan soo qaadno dabcan waad garan kartaan diinta laakiin diintii iyo akhlaaqdii xadiisku wuu kala saaray oo ninkii waxaa loo shardiyey diinahu wa khuluqahu soo maaha marka diintu asal ahaan waxay ka tarjumaysaa dabcan asal ahaan inuu ku camal falo yani waajibaadka oy salaada ugu muhiimsan tahay dabcan baxda alislaam iyo wixii waajibaad oo dhan soonkiisii sakadiisii xajkiisii yani waajibaadkii inuu guto inuu ka fog yahay wixii muxaramaadka iyo kabaa'ir dunuubna inuu ka fog yahay marka يعني كما حرنا كليا صاد هذا كدرنتين هلكن أما كاركيسان يعني مثلا وحيالك لو مكملات أو أخلاق ذا إسلام ككملة لكن إيضو أصلهان فرع كاه الرماها أصل كاه الدين تاه ومثلا لبس كيسة مقال كيسة كرائي وحاس وفرع وحي كيهن أصلهان دين تيسي فرع كيهن ووحي أيهن مقال لكن معها إيضو لبقى أصل كاه معها ماشا أصل كاه يلا قربوا بمعنى waxaan ka wadaa inaadan ku dagmin waxyaalaha muuqaalka kaliya waan dhihin mesela wallahi ninku mesela gar fiican buu leeyahay taasana diintiisa mesela u daliil sax way gar fiican waa sunno waa arin wanaagsan ama waa waajib laakiin meesha laga eegayo diinta laga cabirayo isaga kaligiis maaha meeshaas maaha kaliya taas waxaa laga cabirayaa salaadiisa waxaa laga cabirayaa ammaanadiisa waxaa laga cabirayaa yani maaragtay cibaadadiisa waxaa laga cabirayaa xaaraanta su isaga dhowro oo hadday noqoto xagga cunida iyo hadday noqoto xagga ammaanada iyo hadday noqoto xagga su isaga dhowro waxaasoo dhan baa laga fiirinaya ee lagama fiirinayo keliya muuqaalka keliya madharka keliya lagama fiirinayo marka diinta taas way asalka ususheedii inuu haysto inuu ku xiran yahay masaajida iyo ahlu masaajid yahay ahlu khayraadka yahay iyo ka qayb galo waxyaalaha khayraadka sadaqaadka khayraadka wixii amal khayr ah wa macruuf ah wanaagsan taasa diinta astaama taasa u ah marka diinta waxaan ula jeednaa nuxurkeeda inuu qofkaas haysto qodobka labaad waa akhlaaqda niri akhlaaqda waxaan ula jeednaa diintuna way kala shardiguna waa la kala saaray nin waxaa jira diin leh oo waajibaadkii ilaalinaya oo muxaramaadkii ka fog baa dhici karta inuu jiro sakadii dhibo sadaqaadkii dhibo qodobadii hadda aan soo sheegnay uu leeyahay laakiin gacantiisa iyo afkiisa aan laga nabadgeli karin ama afka uu ka caytami oo uu xanaaqsan yahay saacad walba ama gacantuba qaadi haddii lala hadlo waa ka soo horeysa marka akhlaaqda koow waxaa ka ah in afkiisa iyo gacantiisa laga nabadgeli karo oo afkiisuna wanaagsan yahay laysa bifaaxish walaa mutafaxish qaar waxaa jira dumarka caaya rag waxaa jira dumarka la gurta rag waxaa jira dumarka la jaajaalaya hadday iyagu hadlaan 5 buu oranaya hadday caytanto 10 buu oranaya hadday hadasho hadalkii laba ka mid ku celinaya maana saayilada maana sheegis maana waxay tiri wallahi adiga waxaas iyo waxaas adiga taas isaan marka deeyadii isaga waxba isma dheeraan isku mid bay noqonayaan waxa la rabaa inuu yahay ninku nin raga oo afkiisa u dhowrsan yahay akhlaaqdiisu dhowrsan tahay gacantiisuna dhowrsan tahay waanu gabadhii dilino garaacin laysa haulaa'i bikhiyaarikum gabadha garaaco oo feer soo duubto oo karatay ku barto waxay noqonaysaa hadda ka hor nin macallin ah ku tijaabiyay gabadhii feer wuxuu bartay karataygu bartay iyadii ku tijaabi iyadii gabadhii waa maartay markay isqabteen wuxuu kala daalay lootu kala daalay adhow markaan arrinka dhex galnay ninka waa nin wanaagsan oo diin leh oo ma sha Allah quraan xifidsan oo ma sha Allah walaal xagee ilaa waxaan diinta iyo akhlaaqda waa kala labo waxa markaas aan fahmay xadiiska nabiga kaleey inuu waxaan diinta iyo akhlaaqda inay kala labata
oo ninkii waxaa dhici karta inuu nin diin leeyahay oo qur-aankii yaqaan oo adduunkii yaqaan laakiin yani haddaan hadda wax walba asraara ma furfuri karo laakiin inta macallin iyo xaaskiisaan kala dhex gala xisaab ma leh qur-aankii xafidsan oo gabadhii ka carartay maasha allah marka macallimiinta raallah iga ahadan maahan macallimiintu ay yihiin laakiin waxaan ka wadaa diintay asal u yihiinoo dee qur-aankii iyo diintii iyo way xifsan yihiin haba ahaado xataa macalline waxaa weeye waxaa la fiirinayaa dhaqanka iyo akhlaaqda la fiirinaya haddii wax dilo gabadhii lagu aamini maayo dhaqankiisa guud xishoodkiisa baa ka mid ah akhlaaqda xushmaynta ka mid ah iyada iyo dadka kaleba wixii la xiriira qaraabadeeda ehelkeeda waxeeda inuu xushmeeyo oo weyneeyo oo ixtiraamo qadariyo ayaa laga rabaa dulqaad inuu u leeyahay wixii iyada ka dhacaya oo dhaadhaca oo dumarka ka dhacaya masayr baa ka dhacaya maxaan kuu sheegaa hadallaa ka dhacaya afkeeda uu iska qalloocnaan karaa waxyaalo badanoo waxaasaa ka dhacaya marka waxaas waxaa la rabaa ninku inaanu waxba ka soo qaadin oo uu sabro oo dul qaato nimaan dul qaadin dumarka ma wadi karo qodobka saddexaad oo ninka dumarku ay ku jecel yihiin waxaa weeye hogaamintaas aan sheegay inuu yahay nin go-aan leh mas-uuliyad leh reerkiisa mas-uulka ah xaaskiisa mas-uulka ah yacni maxaan kuu sheegaayey wixii diintu saartay hoygeeda ayuu mas-uul ka yahay nafaqadeeda ayuu mas-uul ka yahay ogaanshaheeda ayuu mas-uul ka yahay diinteeda iyo sharafteeda ayuu mas-uul ka yahay inuu ilaaliyo ubadkeeda iyo wixii iyada ka yimaado mas-uul ka yahay waxaasoo dhan waa inuu mas-uuliyadeeda xambaari karaa laakiin ninka hadduu soo baxo khayra mas-uul ma garatay ma noqonayo qof dumarku sii haysan karaa ama ay jecel yihiin marka dareenka mas-uuliyadda waa inuu ku wen yahay ninku waa inuu wax isku wadi karaa mas-uuliyadda waxaa ka mida iyo raganimada loo qiyaasay xuquuq badanaa lagu leeyahay hooyadiis xuquuq bay ku leedahay aabbihiis xuquuq buu ku leeyahay xaaskiisu xuquuq bay ku leedahay caruurtiisu xuquuq bay ku leeyihin waxaasoo xuquuqoo isaga lagu wada leeyahay waxaa la rabaa inuu kala duwo hadda ka hor yacni waxaa dhacaysa kolalka qaarkood ragga qaarkiis inay iska dhex gasho waxaa iska dhexgelaya xaqa aabbihiis leeyahay ama hooyadiis leedahay iyo xaqa reerkiisu ku leeyahay oo ujeeda heeray dhacdo la yidhaahdo masalan ka saar gabadhan guriga ka saar guriga ma rabo inaan guriga ku arko guriga inaan ku arko oo gabadhii guriga banaanka looga saaro oo dhici karto habeen cad in banaanka loo saaro oo dhici karto baraf iyadoo dhacaya in banaanka loo saaro oo uu yidhaahdo dee hooyaday baa saas tiri hooyaday lama hadli karo anigu hooyaday maxaan ku sameeyaa maxaan yeelaa hooyaday baa saas samaysay masalan waa iska jiraan dumar marmarka qaarkood xadgudba hooyooyin ama sodoho ama marka ninka waxaa iskaga qaldamaya xaqii waalidkiisu lahaa iyo xaqii xaaskiisu ku lahayd waxaa la rabaa inuu waxaa marka kala asturo oo kala maamulo oo hooyadiisna raalligeliyo baari u ahaado ma ujeeda xaaskiisana aanu dulmin oo ay iyadana xaqeeda ay leedahay ogaado marka wax isku wadidaas isagaa laga rabaa ninka inuu wax isku wado oo haddii wax khilaaf leen way diriraan kolalka qaarkood islaanta iyo sodohda ah iyo gabadha la qabaa waxaa la rabaa inuu wax kala wado oo wax isku wado qodobka afraad waxaa deeqsinimada yani saa sheegay hadaaye dumarku ninka gacanta adag waxaa weeye ma jecla oo waxaa laga yaaba ina gadaal xataa xoolihiisii ka guraan ama wax ka qaadaan ama maxkamadii la geeyo maxkamad la isla tago oo maxkamad waxaa la isula tegaya ninkan wuxuu nafaqadii nagu ciriiriyey iyo maaragtay caruurtii annagii wax nama siiyo ilaa heer gabdhaha qaarkood nabiga alay slam usoo dacwoodeen oo yidhahdeen isagoon ogeyn xoolihiis ma ka qaadi karnaa haddii ninkii uu gacan adag yahay oo aanu wax nagu filanna siinayn markaasuu nabig alay slam u saamixay oo yidhi isagoon ogeyn xataa ka qaada marka haddaad gacan adkaato xataa gabadhii waxay sharci u helaysaa adigoon ogeyn inay jeebkaaga ka siibto ayay sharci u helaysaa xaq u helaysaa haddii aad bakhayl noqoto xiriirinta qaraabada iyo dadka iyo martida iyo waxaasna waxyaalaha waxaa weeye maaragtay deeqsinimada la xiriiraho xisaabtanka hadda ka hor gabar baa waxay tiri ninkaan mar doonayo ilaa iyo xataa jinni iyo balaayo isku riday oo la yidhi gabadha jin baa haya oo muddo dhan la daaweynhayay markii dambe nin sheekhaalayo waxay tiri wuxuu yidhi jinno kuma hayo waxna kuma hayaane runta ii sheeg markaasay tiri ninkan
ayaanan rabin ifur baan igu diiday reerkuna ma rabaan inay iga furaan yaa oo maxaad dhacay ninkaaga ku qoonsatay wax badan bay tiri laakiin bakhaylnimadaa ka mid ah subaxdii markuu baxayo wuxuu sii qiyaasaa saliidda inta la isticmaalayo mitir wuu cabiraa saliidda galabtii markuu soo noqdona uu cabir kaluu saaraa markaasuu wuxuu yidhaa maanta wax badan baa saliidda miyaa daadiseen miyaa qubteen xagee waxaasoo dhan oo saliida u isticmaasha waxaasoo sonkora xagee u isticmaasha kartoonkii la keenay asbuuc ka hor waa dhammaaday xagee kala geyseen waxaas waxay tihi maalin walba anugu lacagta mageed baan ka soo qufaya meel baan ka soo qufaya waxay tihi xataa saliidii uu mitir saaraya marka nin saas aduguba la noolaan lahayd bay tiri marka xisaabtankaasna dumarku badan ma jecla qodobka u dambeeyo shanaad ooy raggiina ku jecel yihiin waxaa wey naxariista weye nebigu calayhi salaamna maqasan rifqan bilqawaariir dumarka wuxuu ku tilmaamay quraarada inay yihiin quraarado quraaradu wax yar baa taabta wax yar haddaa saa hadda u sii dayso dhash bay leedahay waa kala jabays bagagagac isuma soo celin karaysa marka qawaariir buu ku tilmaamay nebigu calayhi salaam waa quraarado wey waxa kale marka quraaradaha yaan la jebin oo yaan lagu taagsan way jajabayaan tartiib ha loola dhaqmo oo ha loo naxariisto gaar ahaan marka ay nugul yihiin hadday uur leedahay haddii ay umul tahay haddii ay xanuunsan tahay kuma sii jirto oo weligeed ma hilmaamayso waxyaalaha aad maaragtay markay saasoo kale tahay ama u nugushahay oo ka sii nugushahay dacfigeedii guud haddaadan ilaawin marka dacfigooda inaad ilaaliso weeye ninka dacfigooda ilaaliyaha bay jecel yihiin waxay jecel yihiin ninka tixgeliya duruufahooda leanna duruufo khaasaa la xidhiira mar waa wallac oo mar waa maaragtay uur oo mar waa umul oo mar waa maaragtay caadi qabtaa waa dhibaataysan tahay hormoonaadkeedo dhan waa kacsan yihin acsaabteedo dhan waa kacsan tahay oo marka adiguna haddaad markaasoo kale la kowsato dee markaa isla ishticaalaysaan isla gubanaysaan isla ololaysaan marka marka waxaa la rabaa qabow iyo dejin iyo si degan in loo ictibaariyo naxariistay ka mid tahay waqtiyaday baahan yihiin gaar ahaan arrimahaas waa waxyaalaha guud oo kale waxaan ku darayaa marka qodob idinka iyo iyagaba idinka dhexeeya laakiin ragga xaggiisa u badan taasna waxa weeye qodobo muhiim ah oo ragga dhallinyaradaana aan u qishayo inay maaragtay ka faa'iidaystaan waxaana ku tilmaami karnaa bahaaraat waxa carabiga lagu yidhaahdo ama flavors maaragta of love yani jacaylka guriga ayay maaragtay macaaninayaan suugada aan lahayn xawaajka iyo alaabta iyo waxyaalaha lagu dardarin it's not the main thing maaha alaabta mainkaay waa waxyaalo kaleeto content kale waaye laakiin waxaan yaryara lagu daraayo maaragta flavorskaasu macaan bay ka dhigayaan iyo alaabta iyo guriga marka guriguna wuxuu u baahan yahay some flavors buu u baahan flavors marka midaan xataa odayaashu way u baahan yihiin inkastoo iyaga iyo islaamahooda dee isku waqti ay ahaayeen oo isku sabrayaan laakiin dhaqanka guud sida guud oo islaamku ina farayo ama dhaqankiisu waa muhim weeye awalan yani raganimo iyo yani akhyaarnimo in dumarka lagula dhaqmo oo bimacnaa wax badan asal waxaa u ah cafis wixii adiga xaaskaaga idinka dhexeeya hadda u fiirso xataa xuquuqda aad leedahay waa meher buu noqon karaa waxyaalo kaluu noqon karaa waxaa asal u ah cafiska wanaagsan inaad cafiso ka tagtaa wanaagsan oo aadan waxba ka doonan oo waxba ka qaadan hada huwa afdal xataa xaq haddaad ku leedahay waxaana u asala ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay aayadda marka la kala tegayo وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم هيه maxaa ka dambeeya إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير gabadha haddii aad guursataan buu yidhi waad furtaan idinkoon la aqalgelin meherna aad u magacowdeen
waxay xaq u leedahay meherka niskiis, meherka nuskiis. 10 kun baad ku heshiiseen oo meher ah, waad mehersatay gabadhii, lama aqalgelin, adigoon la aqalgelin baad kala boodeen. waxay leedahay meherka nuskiis markay tegayso, ilaa inay cafido mooyaan ama adigu aad cafido. sida xaqa la isku leeyahay waa nus, laakiin waxaa dhici karta inay tiraahdo nusna kaa qaadan maayo, niyaho waxba maba aadan helin, nin miskiinoo meesha ku jabay baa tahay, marka 10kaagiiba iska qaado iyadoo ful ah, waxba ha keenin. yaa way heli kartaa inay cafido, inuu isagu cafiyo waa heli karaa oo yidhaahdo 5 baad xaq u leedahay, 5ta kalena ku darso, waxba mar haddaan ku hadlay kaaba qaadan maayo. waataynu wada kulannayoo yacni dee nin iyo xaaskiisu way isu bannaan yihiin, mugta wax kastaa dhex mari karaa, hadal baa dhex maray, haasaa waa dhex maray, faraka ciyaar baa dhex mari kara, wax kastaa dhex mari kara. almuhim marka inuu yidhaahdo isaguna sharafta ka xigo, aw yacfu aladii biyadihi cuqdat nikaax. markaasuu ilaahay wuxuu raaciyey xaqu markuu saas yahay in mid walba uu cafin karo inay u bannaan tahay. markaas haddana aayaddu waxay raacisay in cafiskaasu in midkiin cafiyo ay tahay sida taqwada u dhow oo wanaagsan, sida taqwada u dhow kee afdal ah labadooda kii cafiya. wa an tacfuu aqrabu litaqwa. markaasuu ilahay haddana wuxuu ku sii daray walaa tansawu alfadla baynakum. war wanaaggii ha ilaawinina idin dhex maray iyo macruufkii. ilan shalay waxaa ahaydeen I love you, you love me baad isla ahaydeen, hadda maanta la kala boodeen. ujeed jacayl baad isku soo aadeen, haddana waa kala boodeen. marka jacaylkii ha ilaawinina shalay jiray iyo wanaaggii idin dhex maray. marka gentleness baa laga rabaa ninka, dumarku jecel ninka gentlemanka ah waxba ka doonin. xasan ibn cali radi allahu canhu ayaa waxaa laga sheegaa inuu furiin badnaa, inuu furiin badnaa bay qisooyinku sheegaan. xasan ibn cali ibn abi aalib radi allahu canhu marka gabar buu furay, markuu gabadhii furay buu xoolo badan u diray oo tiro badan. nin adeegihiisa raggii u adeegi jiray buu lacag badan intuu dhibay 100 kuna wuxuu yidhi ugey gabadhaas. oo tasriixun biixsaan waxaa weeye mutca la yidhaha gabdhaha marka la sii daynayo. islaamku wuxuu noo jiday in gabadha la hagaajiyo, la sagootiyo, qalbigeedii jabay oo furiinka ku jabay, waxaa la rabaa in la kabo. ujeeda markaa furayso meherkeediina waa siinaysaa, maxaa kaloo ugu daraysaa sagootisna ugu daraysaa. 5 kun oo kalena waxaad leedahay, ama 2 kun oo kale, ama kunkaas waxaa weeye maaragtay isaguna waa sagootis wey. saas wey. rag baa la mari kari laaya, waxay qabtaaba ka badan, waxay iga qabtaaba anigaba gurigayga gubtayba qoftaan ee wareerisay oo haysay, waxaa igu samaysay, waxaa igu samaysay, waxaa igu tirsanaya, xisaab buu soo dhiganaya halkan buugii qal. marka calaa kulli xaal nimayo waxaa la rabaa khiyaarnimo. gabadhii waxay tiri lacag badan weeye, laakiin ninkii miyuu ii soo noqonaya, ninkii xasan ahaa miyaan helayaa mardam? isagii ma helayo, yani isagii bay ka go'i kari ladahay, laakiin xoolihii bay siisay. waxaa kaleetoo ka mida serviska iyo guriga khidmada, yani reega loo adeego, wixii loo qabanayo, waxay u baahan yihiin meel hadday u baahantay la geeyo, waxyaalaha haddii in loo soo qaado, yani waxyaalahaasoo kaleetana yani okay. hadalka dumarku akthar min arijaal, ragga waxay uga badan yihiin xagga hadalka. afkay ku nool yihiin, macnaa waxaa weeye markaa la hadal xaaska. gabdhar badan baa waxay ka ashtakoodaan ninkii ma hadlayo, maanta oo dhan shaquu jiraa, caaw markuu yimaado tv-gu saa u furaya, cashadii waa usoo dhigaya, cashada markaa usoo dhigo waaba sii khuurinaya, waa sii socda. goorma wada hadlaynaa marka goor aan la hadlo iyo goor aan wada hadalnaba mahaynaba. oo wuxuu ku leeyahay hadal tirada naga daa, hadal maxaa loo baahan yahay, mashaaka maanta dhan BBC miyaan ahay anigu buu leeyahay. BBC ma aha qofkan wuxuu u baahan yahay inaad la sheekaysato, inaad la fariisato, waqti idinka keligiina ma ujeedaa aad dhegaysato, ay ku dhegaysato, adiga aad dhegaysato ayaa loo baahan yahay. marka hadlaya akhwaani, hadalku lacag idinkuma joogo, xaasaskiina la sheekaysta. waxay kaloo u baahan yihiin hadiyadda, waxyaalaha flavorska waxaa ka mid ah hadiyadda. guriga ha soo gelin adoon waxba gacanta ku wadin, gacanta waxba ku wadin, xabad barafuunay, xabad keegay, xabad shokolaataay,
khaasna gabdhaha dambe shukulaatada iyo waxaasii cunaan soo moogidin ya iyo meelaha dukaamada yaryar ee lasoo maro ya ice creamka ha hey waxaasoo dhan waa hadiyad weeye marka hadiyad la-aan ha soo gelina guriga tashjiicinta dhiirigelinta hadday wax samayso wanaagsan hadday maarata carruurta wax wanaagsan ku samayso hadday guriga wax wanaagsan ku samayso hadday alaabta wax wanaagsan ku samayso saasaa la rabaa gabdhahana waa laga rabaa maaha ninka keliya ila wataan iri waa mushtarak xayaanahano waa wax la wadaago gabadha ninkeedu intaasoo dhan buu wax bixinayaa waxbuu masruufayaa waxbuu siinayaa waxbuu keenayaa xeeranaysaa hadiyad buu keenayaa tan waa tii sanadkii hore laga tegey miyadaaba goorma laga tegey kan haye barafuunkana waa kanoo kale yaa qaata hay oo maxaa marka dan waxaan de naga daab marka waxba ha u keenin waxaan keenaba haddii la oranayo wax nafle maaha ama dookhaagu ma fiicna haddii la oranayo waxaa la rabaa inay tiraahdo maasha allah wax ka fiicanba lama arag barafuun ka fiican lama arag alaabtaan adiga dumarkuna way jecel yihiin hadiyadda dumar raggooda ay u soo gadaan waxay ka jecel yihiin inaad lacagta iyada siiso waxay ka jeceshahay inaad hadiyadda u keento xabadda hadiyadda haddaad adigu waxaad usoo gaday 100 yahay kunna aad siiso waxay ka jeceshahay 100 ragguna saas oo kale way jecel yihiin xaaskooda waxay ku xusuustaan oo gabadhu waxa la rabaa suuqa markay soo marto meelaha soo marto odageeda inay tiraahdo hadiyaddan barafuunkan adaan kuu soo gaday macaawistan adaan kula jeclaaday alaabta yarta adaan kula jeclaaday xogaadan yarta adaan kula jecyaa waxyaalahaas waxa loo baahan yahay oo jeedaa waxaa loo baahan yahay nolosha taqyiir bay u baahanta haddaan maanta oo dhan beriis haddaan cunayn dee bisha dhan haddaan beriis cuno waa daalaynaa marka beriiska miyaa la bedeliyahay oo dhan miyaanu bedeli jirin marka wax walbina waa saas nolosha bani aadamku iska maluul bani aadamku sidiisaba waxaa loo baahan yahay inaad kolkol bedesho gabadhu sanadkii oo dhan bay waxay ku jirtaa masalan guriga halka caruurta u libis u dhaq u samay ka saar haddana u libis u saar iskuulka u dir ka soo qaad iskuulka gey ka soo qaad cashada samay guriga dhaq ka soo qaad sanadkii dhan haddii intaa ku jirto maalin way kaaga baahan tahay inaad tiraahdo haye maanta wax shaqaa ma qabanaysid iskaga soo caruurna ma celcelinaysid bahalkiina ma qabanaysid maxaan kuu sheegay ya waxna ma karinaysid ina soo kaxayna kan aniga adiga le waay banaanka le waay banaankan u bixin keligeen aniga adiga le waay banaankan u bixin ma ujeedaa kolkolka saasaa loo baahan yahay kolkolka qaarkood nolosha inaad bedesho fasax yar inaad qaadato walow 2 beri 3 beri 5 beri usbuuc xataa aado waxyaalahaas waa tagyiir waa loo baahan yahay inaa marmar adiga iyadoo meelihiina iska soo ciyaartaan meelihiina iska soo maarata cashaysaan meelihiina inaad maarata iska soo tartantaan ilaa safartii markii lagu jiray nabigu calayhi salaam xaaskiisa uu la tartamay waxaa tagyiir feefar baa gelinaa nolosha yaa caaisha uu la tartamaya nabiga xul caaisha ayaa tartanaa aniga adiga yalla balkeena ciidanka sii socda idinka waa tartamaynaa yaa marka adu waxaa oranaysaa anuu nin gentleman anahay ma had waxa ciyaartaa naga dhaaf caruur miyaan nahay anagu ya noo keeni wax yaa caruur miyaan protection oo nabiga calayhi salaam caruur baa markuu xaaskiisa la ordayay markuu cuntada afka ugu gurayay markay iyadu maaragtay ciidda isaa korkiisa u marinaysay isna u marinayay saabuunta markay korkiisa marinaysay isna uu saabuunta ka qaadayay oo ay wada qubaysanayeen yaa ma jira qof xaaskiisa marna la qubaystay keligeed iyo wada qubaysteen waxaa laga yaabaa nina inaan la soo helin maca daalika nabigu alay slam xaasaskiisa oo la qubaysan jir marbay musqushooda geli jireen oo biyaha wada qubaysan jireen oo isugu shubi jireen oo saabuunta isu marin jireen ma ujeeda express love bay ka mid tahay iyo protection xaaskaaga inaad ilaaliso inaad difaacdo inaad maaragtay sharafteeda iyo magaceeda iyo maqnaansheeda difaacdo sidoo kale lofkaaga inaad u sheegto jacaylkaaga iyo qadarintaada inaad u sheegto haddaad ka xishoonayso afka inaad soo mariso wallahi anigu xaaskayga waa jeclahay laakiin isbihinbihinta ma aqaan haddaad tiraahdo isbihinbihinta iyo maaragtay I love you iyo waxaas iyo waa ku jeclahay iyo waxaas caruuraha ku hadle laakiin anigu waan jeclahay xaaskayga inaan jeclahay shaki kama jiro ya waayo u sheeg haddaad jeceshahay u sheeg ya waxaa kaloo ka mid a illegansiga yani xaragada xaaskaaga u xaragood gabadhi adiguna ninkaaga u xaragood gabdhaha galabta waa u sheegayay waxaan ihi ninkii arkay xaaskiisa oo aroos u labisanaysa mase wuxuu mooday qof kaleeto wuu garan kari waayey wuxuu leeyahay qoftaan islaantan sidaan u labisan oo sidaan u mashashuursan yay tahay markaa qof kaleo xaafadda soo siyaarata u maleeyey mawjeed base waa iyadii ilan isagu had iyo jeer wuxuu ku arkaa marada un baatigaayoo guriga ay ku joogto keliya inay maaragtay hortiisa un weligiis iyada oo alaab maaragtay sida dayaxa oo kaleeta sida tamuyan arag
marka wuxuu yidhi alaabtan annaga maana loo gashado dadka loo gashanayo marka isagana sidaasoo kale gabadhu ka rabtaa dee siduu ninku saa uga rabo inay cilaansato barafuusato adduun quruxsato isagana saasaa laga rabaa anagood mar baa gabar iisoo qortay waxay tiri nigay muddaan wada joognay waxa aan ku kala tegayno oo aan noloshii la xambaari kari la'ahay waxa weeye ninkii inuu qubaysto ma rabo markuu guriga habeenkii markuu yimaado inuu qubaysto ma rabo waxaa u daran uun xaajadiisa inuu guto si kastaba ha ku guto khalaas dareen kale iyo cid kaleeto uu ilaalinayo ma jirto haba yaraa bal xataa cadaygii inuu si fiican cadaydo habeenkii hadduu yimaado ayaan laga karihayn dabcan qofka hadduu saaka cadayday cadaygeenu mar kale ku celiyo u baahan yahay khaasatan habeenkii markuu reerkiisa iyo xaaskiisa iyo la kulmaa gabadha laftigeeda u baahan tahay ilan kulankan waxaa la rabaa inaan dadku kala cararin oo qofku wax raa'ixa xun uyan kaa urin gabadhuna aanay ninkeeda raa'ixa xun ka dareemin ninkuna aanu xaaskiisa raa'ixa xun ama afkeeda ama meel kale wax kale ka soo baxda aanu ka dareemin si aan loo kala anfariirin waayo waxyaalahaas anfariir bay keenayaan nicitaan bay keenayaan walow uu qalbiga maaragtay la qarsado ama maaragtay la isku khasbo marka waa in nimayaho laxaragooda saabuun iyo shaambo iyo adduunka way buuxiyeen maanta marka waa in maaragtay alaabtaas la isticmaalo ugu dambayntiina xagga guriga iyo qolka hurdada waa in si fiican labaduba ay u bartaan siday qof mid walba midka kale ugu raali gelin lahaa taasuna waa muhiim nolosha xiriirkeeda very important way aad iyo aad bay important u tahay waxyaalaha ilaahayna subxaana wa tacaala xaqada kama xishoodo laakiin waa in maaragtay qof walba qofka kale raali geliya oo wax qancin kara oo xalaala uu sameeya wixii xaaraan ah laga fogaado laakiin wixii xalaasha ah in maaragtay laysu dhinac geliyo weeye